munaafiqiinta sifaadka uu qur-aanku ku sifeeyey waxaa ka mid ah inay yihiin qaybo ka midi duul tahana muuqaal ahaan dadka markay is hortaagaan jidh ahaan dhisan hadal ahaan hadal deeqsiinaya dadka u sheegaya inay khayr iyo wanaag wadaan waxay rabaan inuu islaax yahay laakiin hadday jeestaan iyo markay tagaan bulshadii markii lala hadlay saasaa loola hadlay laakiin marka asxaabtoodii ama gaaladoodii ama kooxdii la isku mabda ahaa loo tago warkii ka gedisan baa la akhriyaa mar labaad waxaa la yidhi marka ay hadlayaan ay wax sheegayaan sidan bay wax u wadaan haddiise madax laga dhigo oo iyaga arrinka loo dhiibana wax walba waa gundhaban baa ilaahay leeyahay fasaad bay ku gundhabaan waxbaba ma nooleeyaan idan marka hore aanay wax haynin waa warramayaan khayr bay ka warramayaan iyo wax walba in la islaaxinayo markayse iyaga gacantooda soo gasho dad iyo xoolaba waa halaagsamayaan ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyahay waa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha calaa maa fii qalbi wahuwa aladdu lkhisaam dadka qaar baa ka mida baa ilaahay leeyahay warkiisu uu ku cajab gelinayo oo dadka caliimu lisaanka bale dad dood badan oo doodyahana aladdu lkhisaama dad dood badan oo warkiisa markuu sharxayo si fiican u soo bandhigi kara laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waidaa tawalla min alwilaaya aw min altawalla iyo alicraad kaa doontaba kake haddii ay madax noqdaan ama haddii ay jeestaan oo meeshii laga warramayay ay ka tagaan oo meelahoodii gaarka ah ay tagaan ilahay wuxuu leeyahay sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasr wallahu laa yuxibu alfasaad shaqaday markaa u dhaqaaqaan waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay inay dhulba fasahaadiyaan oo ay xarth iyo nasl taran iyo beer iyo cid walba inay halaagaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wallahu laa yuxibu alfasaad baa ilahay yidhi ilaahayna fasaadka ma jecla waidaa qiila lahu ittaqi illaah markaa dambe uu wax wado haddii la yidhaha war ilaahay ka cabso xaggaad wax ku wadaa akhadathu alcizatu bilism faxasbuhu jahannama walaa bi'sa almihaad isla weynidiiyo kibirkaa qaado oo dadka wuxuu arkaa dadaan waxba garanaynin ama wax badan wuxuu arkaa fasaadkiisu inuu islaaxiyey ويا إلهي بوحلي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون با إلهي إليه هدي الله يراهدو وردلك فسهاديننا وحيلين أنه وحن وضنابا وإصلاح حقا كان دادك الله ليني وحكا وحلوغة جدا النظام كاللوغة ديجيو الرموه هنا يدق نقضان ayuunbaa loo wadaaye adigunbaa angalka qalloocan wax ka arkayaa lagu leeyahay adigaa meeshaad wax ka eegaysaa meel qalloocan tahay ee indhaha fayowa caafimaadka qaba wanaaggan wadna way arkaan dadka bukaan arag bay ku leeyihiin indhaha bukaan arage wixii caafimaad qabee fayoobi way arkayaan waxa islaax iyo wanaag la wado ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum hum almufsiduun innahum hum almufsiduun ألا وهي أدوات التنبيه با إلهي كو استعماله دبتنا إلهي وحلي إنهم هم المفسدون يغو كليوم با إلهي لي أهل فساد كوا وح فساد يا ويغا لكن وحبواني قرني وحبواني دريمين با إلهي لي درين كالو مي إلهي سبحانه وتعالى وحكو تلمامية من علامات النفاق إني كم تهي dadka ahlu iimaanka ee ilaahay rumeeyay inaad u aragto masaakiin aan aqoon lahayn badan wax badan garanaynin sufaha maangaabiyo garaad laawayaal dabeetana ilaahay wuxuu ku leeyahay waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaas haddii la yidhaahdo war dadka sida ilaahay u rumeeyeen idina ilaahay u rumeeyo kibirkan iyo waalidan ka daaya qaaluu an nu'minu kamaa aamana asufahaa bay leeyihin ma waxaad naga rabtaa inaanu yeelno dadkan maangaabyada iyo dadka wax magaratadii siday yeelaan masaasaad nala rabtaa bay leeyihin ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum hum sufahaa walaakin laa yaclamuun iyagaa safiiha baa ilaahay yidhi maangaabyadu waa iyaga laakiin waxbaanay garanayn baa alla leeyahy subxana wa tacaala oo goormuu maangaab garanaya dee inuu maangaab yahay daabuu maangaab yahay siduu u garan inuu maangaab yahay waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya sifaadkooda inay ka mid tahay mu'miniinta meel ay joogaan ama muuqaalkoodu joogo markay yimaadaan
inay muujistaan aragti aynay la mid yihiin waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanna laakiin kooxahoodii iyo waxoodii markay u baxaan idaa khalow ilaa shayaatiihim qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun markuu warka dadka la hadlayo shareeco iyo diin iyo arrimo iyo warkaasuu ka warramay khayr buu ka warramay iimaan baanu qaadannu ka warramay laakiin kooxahoodii markuu u taga baa ilaahay yidhi wuxuu odhanaya war waa cayaarin maangaabyadan iyo dadkan wuxuu sheegaye ma waxaasi dhabnaga ma aha buu leeyahy waa xiiladka siyaasigaa ka mida buu leeyahy wax badan kama aha هذه الصفات marka aan tilmaamayno yani quraanku sifaat aad u tiro badan buu ka tilmaamaya waxa kamid ah inay yihiin dad xumaha un ku baaqa waan samaha ku baaqin المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إلهي وحو tilmaamaya inay yihiin dad xumaha dad ka fara fasaadka iyo radiilada iyo waxa liita iyo akhlaaq xumada iyo waxaasi waa nidaam الحريات oo la faafinaya waa wadaan macruufku se waa khatar meesha waxba ku jiro waxba ka soo socda la leeyahay wixii macruuf ayada cagta la saaray wala reebaya wixii fasaadi iyagu waa mubaax waa la sii deynaya ilaahay wuxuu ku tilmaamaya subhanahu wa ta'ala inay sifaadkooda ka mid tahay waa yaqbaduna markay xoolo joogto waa dad hunguri badan baa ilaahay leeyahay waxa inta u badan qaataan bay rabaan marka ay bixin joogtana waa dad gacmo adag oo inaan waxba ka bixin bay rabaan isagu waxba intuu qaato inaan shilimo ka dhicin ay doonayaan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وضد مركا وحبحين يا صدقية وحبحين شوكتور ربين وحلصيو إذن راعستك الراعة هل كاس وحكم غليها هداد وحسيسه ومعك والرالي انت وحقادنا ايو لكن هدي اللي دادك ما انت ولا غير ما قولك هاي ردي بدن باجرتا مركاس ودود يا با الهي لي سبحانه وتعالى مركاس عرض بلابيا إذا وضد هنغوري بدن وهانتي مركا ماشا تالنا هنغوري لا تاغن marka aan wax jirin ama aan isaga wax loo dhiibina ceebayn badan baa ilaahay leeyahay lamzi waa dad ceebayn badan oo dadka ku ceebaynaya wax bixlaan iyo kan waa dad haday wax bixinta iyaga waxa la yiraahdaa yaqbiduna aydihim gacmahaba u xidhan bastil yadi ma yaqaani gacantooda ma fidsana idan waa min sifaat an-nifaq هذه الصفات marka aan tilmaamayo waxa aan rabaa inaanan anna yeelan adna aan yeelanin وهي علامات كميدة علامات النفاق نفاقنا هو قيب سما مرنا وكي قلبي دغيا قال لمدها مرنا والنفاق عمليه مركا ان كورما صفات المنافقين وما جيدينا عد علامات سانو استيسان waxaan u jeeda qof kasto oo mu'min ahlu iimaani inuu isku dayo inuu waxa kan ka faydmo ka toobad keeno inuu isku dayo inaanu yeelan calaamadii ilaahay kuwa naarta halka u hooseeyay galaya ay lahaayeen inaan adigana laga helin inaynu isku dayno inaynu ka fogaano